sidee al-shabaab ugu suurta gashay inay ka dhex dagaalamaan xarunta xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho waa macluumaad kooban aan kaga hadli doono weerarkii ka dhacay xarunta xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho ee caasimada Soomaaliya kusoo dhow daawada macluumaadkeena maanta warar dheeraad ayaa ka soo baxaya weerarkii Isniintii shalay gelinkii dambe ka dhacay xarunta xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho kaasoo ay maleegeen maxaabiista xabsiga lagu hayay oo qaarkood ka tirsanaa ururka al-shabaab xukunno kala duwan lagu riday sida aan warbixinada aan ku ogaano weerarkaasi waxaa loo adeegsaday bambaanooyin iyo bastoolada taasi oo sababtay inay dheeraato soo afjaridda weerarkaasi oo qaatay muddo saacad ku dhow iyada oo warbaahinta dawladana ay sheegtay in maxaabiis lagu qabtay 2 bastooladood ay wateen sida wararka aan ku helayno waxaa weerarkaasi uu ku bilowday bastoolad iyo bambaanooyin dhowr ah oo lagu dhex qariyay raashin sida la sheegay loo gudbiyo maxaabiista oo loo adeegsaday in askarta ilaalada 2 ka mid ah goobta lagu toogto laakiin mas'uuliyiinta dawladda waxa ay sheegeen in kuwa xabsiga ku jiray mid ka mid ah askarta dawladda ay qore ay kula dhigeen kadibna ay toogteen oo ay sii toogteen sidoo kalena askar kale oo ilaalo ahayd sidaasina ay ku heleen qoryihii ay ku dagaalameen xogta aan helayna waxa ay sheegaysaa in 2 ka mid ah ilaalada xabsiga la dilay halka maxaabiistii ka tirsaneed al-shabaab ee xabsi daayinka ku xukunaa 6 ka mid ah ay weerarkaasi ay ku dhinteen 6 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray waxaana nolosha lagu qabtay 5 maxaabiis ah sida ay baahiyeen warbaahinta dawladda waxaana maxaabiistaasi la sheegay 2 ka mid ah in bastoolada ay wateen taliyaha ciidamada asluubta General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa dhankiisa macluumaad kooban ka bixiya weerarka maanta waxaa dhacday maxaabiistii shaqaynaysay oo gudaha ku jirtay waana kuwii raashinka karinayay oo ayagaa raashinkooda iyo waxooda iyo nidaamkooda karsada oo gudaha ku jirtay yaa waxay qori la qabsadeen askari waardiye ka ahaa oo gudaha kula dhex jiray oo hawshii la waday qorigii la qabsadeen nasiib wanaag si fudud qorigii markii ay la qabsadeen gacantoodii uu ku galay waxay bilaabeen dagaalka dhacay waa noocaas dhibaato badan bay soo hoysay mar hadday gudihii xabad ka bilaabatay dagaalkaas wuxuu keenay dhimasho iyo dhaawac isla markii waxay boobsiyeen askari labaad oo kor saarnaa bay toogteen askarigiina waa soo dhacay qoryihii ay haysteen oo gacantooda galayna 2 qori ay noqotay 2dii qori ayay ku dagaal galeen marka baabka waa sidaas waxa meesha ka dhacayna waa inta ayada wax ka gudubsanna ma jiraan weerarkan xabsiga ka dhacay ayaa markii ay soo afjareen ciidamada sida gaarka u tababaran waxa la sheegay in xabsiga maxbuus uu ka baxsaday kaasi oo la sheegay in uu agagaarka dekedda magaalada Muqdisho uu ku dilay wada mooto bajaaj kadibna uu ku baxsaday mootadii darawalkiina uu goobta uu ku dilay inkastoo aysan jirin mas'uuliyiin dawladda ka tirsan oo arrimahaasi ka hadlay saraakiil dhanka ammaanka oo ka tirsan laamaha ciidamada dawladda ayaa waxay ka hadleen xubnaha ka tirsan al-shabaab ee xukun sugayaasha ahaa iyo sidoo kale xukuumada kuwa lagu riday ee xabsiga dhexdiisa ku dhaxaystay telefoonada smartiga iyo qadka internetka dhinaca kalena siyahayaha wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa wuxuu ka warramay dhacdadaasi isaga oo shaki geliyay qaabkii weerarka u dhacay isla markaana carabka ku adkeeyay inay jiraan dad fududeeyay in maxaabiista gacantooda hubka uu galo ayna bilaabi doonaan baaritaano dheeri ah si sharciga loo horkeeno dadka falkaasi ka dambeeyay bismillaahir rahmaanir rahiim maanta 4:35 daqiiqo waxaa ka dhacay xabsiga dhexe ee Muqdisho fal dambiyeed oo maxaabiista halkaas ku jirtay qaarkood ay ku kaceen ay la wareegeen hub dagaal ku qaadeen ciidamadii halkaa joogay waxaa u suurta gashay ciidamada dawladda in nimankaas oo faldambiyeedka ku kacay ay la dagaalamaan oo ay gacanta ku dhigaan falkaas waxaa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa lagu guuleystay markii ugu dambeysay in la soo afjaro haddana waxaa socda baaritaankaas oo la xiriira falkaas habkii ku dhacay iyo sidii u dhacay waxaana rajaynaynaa in la soo gabagabayn doono baaritaankaas waxaa kale rajaynaynaa cid alla ciddii
arrimahaas fududaysay in hubkaas gacanta ay u galaan nimanka oo rabshadaas halkaas ka kiciyey waxaa lagu qaadi doonaa sharciga waxaana la horgeyni doonaa sharciga waxaan u ballan qaadaynaa ummadda Soomaaliyeed in aan ilaalin doono xabsiyada aan ku soo rogi doono habraaciya oo lagu lamaana qaadayo maxaabiista amnigooda iyo ilaalinta maxaabiista intii iska hor imaadka lagu jiray waxaa ka dhashay meeshaas in khasaare labada dhinac ay soo gaartay ciidamadii dagaalamaysay iyo kooxihii abaabulanayay oo halkaa ku dagaalamayay waxaa nasiib wanaag ah in gacanta lagu dhigay qaar ka mid ah kooxihii dagaalamayay ayagoo nool qaarna ay dhaawacan yihiin haddana ciidamada amniga ay gacanta ku hayaan ay maaragtay baaritaan ku samayn hayaan kuwaas oo laga heli doono faahfaahin dheeri ah habkay hubka ula wareegeen waxaan insha Allah isku dayaynaa inaan soo gabagabayno baaritaan aan gadaalna idinka soo sheegi doono intii ku dhaawacantay iyo intii ku dhimatay sidoo kalena taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliya General Mahad Cabdiraxmaan Aadan waxa uu faahfaahin uu ka bixiyay weerarkii gelinkii dambe ee shalay ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho kaasi oo lagu soo afjaray weerarkaasi kadib markii ciidamada sida gaarka u tababaran ay ka qayb qaateen soo afjarida weerarka taliyaha oo aan ka hadlin qasaaraha weerarkaasi uu ka dhashay ayaa waxa uu ka hadlay qaabka weerarka u dhacay isaga oo tilmaamay in koox ka tirsaneed kuwa raashinka u kariya maxaabiista xabsiga ku sugan inay ku boodeen askari goobta taagnaa oo qorigiisii ay la qabsadeen markii ay kala wareegeen goobta isaga ay ku dileen sidoo kalena ay toogteen askari kale oo qori haysta kadibna ay ka qaateen sidaasina weerarka uu ku bilowday kuna dhamaaday marka arrintaani la eega waxaa muuqanaysa habacsanaan dhanka ammaanka ah su'aalo badan ayaa la isweydiinayaa oo ay ka mid tahay sidee rag ku xukuman dil toogasho loogu ogolaanaya in raashin xabsiga ay u kariyaan sidee maxaabiis xabsi ku jirta iyaga laftooda loogu ogolaanayaa inay howlaha xabsiga ay qabtaan oo ay raashin u kariyaan maxaabiis kale oo iyaga la mid ah oona xukuman waxaa kaloo la isweydiin karayaa su'aalo kale oo dhowr ah aragtidaada qaybta hoose ku reeba sidee kula tahay adiga